inta tiktokeradaana waxaanu leenahay dhibka dalka iyo dadkaba ka daaya intaa ka bacdi waxaa duurka lala marayaa dad baa amniga siyaasadaynaya amnigu waxaad ogtihiin intii xukuumadda dan qaran joogtay madaxweynaha maaragtay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan uu joogay inuu soo hagaagay waxaana hadda jira iska daa bini aadanka wax kale carabiga ilka isqaniina wax yaroo dhaca dadka baabuuninaya oo ka dhigaya wax maaragtay dhibaato ah oo dalkii ma garanaysa ku soo dhacay waxaanu leenahay dalkiina u naxa dadkiina u naxa khawaarijta gacan siinina dalku waa nabad waxaad ogtihiin xataa waxa dhacay sida looga hortagay iyo falka ay soo degeen khawaarijtu waad ogtihiin sidaa daraadeed waxaanu aad iyo aad horta marka koobaad aan kugu celinayaa idaacadihiinu si aad u tabiseen oo sharaftiga karaamada lahayd dadka ku hawlan inay cambaareeyaan amniga iyo waxaas iyo siyaasadeeyaan waxaanu leenahay ka baxa wax ay idin taraysa male waka وين حلم قرعوا ورر الشباب وحقوق هذا حرنتو هو إن نيس حرن أنت أصلاً إن سيدا صوف ضاعتو محاكين ودوار الولد البرع أدر معانا هرتا مدوي تشرتا مدودان حوقا إسكا ماركتاي ما دام أمني سوها جاجي وحين إذا مادين باي ماركتاي إن لوقع طيبات دعكرتا لكن سيمبل وأرن يربي أهيد arrintiina sida loo soo afjaray iyo sida looga hortagay waa iska dhacda Soomaaliduna waxay ku mahmada tuukulay yaal tabta ma waayo dadku waxaan khawaarijta waa aboor ummaday ku dhex jiraan marka xoogaa yar oo dabacsanaana bay meesha ka heleen intiina waad ogtaa sida loo soo afjaray iyo sida loogu dadaalay iska daa Muqdisho dalkii Soomaaliya insha Allah mar dhow laga suulinaya xaruntuna dalkay ka mid tahay si aad ogtihiin baqa iyo fulinimo cararahay ku galeen si fiican baana looga hortagay marka midaasu waa waxyaalaha Ilaahay qadaro qadarta Ilaahay ku dhaca oo cidna baajin karin unbay ahayd maahane wax jileeca oo ay ka heleen ciidamada geesiyaasha Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya midna adeer ma jiro ayadoo wadooyinka la furaayo oo dhagxaan la qaaday soo aaday ma la dhihi karaa way fududeysay maya lama dhihi karo horta ayaga laftigoodu waxay ugu tala galeen waa nool lah inay dhahaan oo naf baa wali ugu jirta horta intaas unbayba muhiimadoodu ahayd laakiin wadooyinka waa la furayaa insha Allah iska daa kuwa shacabka xukuumadda maanta joogta iyo dawladda maanta joogta waxa ka go'an inay xataa kuwa madaxtooyada qaadaan oo dalku amni rasmi ah ugu soo celiyo waana awoodaan ciidamadannadu maamulkanaguna waa awoodaa iyo maaragta xukuumaddu وانا لقاضية لونا تشوتشين مايو واتشوغنانا wax ciday wax yeelaysa malaha